In ka badan 4 sano faragelinta militariga ballaaran ee Yemen waxay u muuqataa in Sacuudi Carabiya wajahayso xulashooyin adag oo ku saabsan bixitaanka dagaalka Yemen. Saameynta halista ah ee ku saabsan amnigeeda iyo dhaqaalaheeda iyadoo lagu saleynayo dhaqaalaha faraha badan ee shidaalka. Dagaalka Yemen ayaa hoos u dhac weyn ku yeeshay dhaqaalaha boqortooyada, laakiin taa beddelkeeda waxa uu hanjabayaa sharafka boqortooyada wuxuuna dhaawac gaarsiiyay kaabayaasheeda, gaar ahaan kuwa muhiimka ah. Maanta, Sacuudi Carabiya waxay wajahaysaa hanjabaad dhab ah oo kaga timid Iiraan. Waxay ka mid tahay Iiraan dhinacyada saameynta ku leh dagaalka Yemen iyo taageerada ugu muhiimsan ee Xuutiyiinta Yemen. Dagaalka uu Riyaad kala horjeedo qayb ka mid ah hanjabaadaha ayaa bartilmaameedsanaya awoodda Sacuudiga ee dhoofinta shidaalka. Gacanka Cumaan iyo badda Hormuuska ayaa goobjoog u ahaa ilaa iyo 12kii May shilal isdaba joog ah oo lala beegsaday haamaha shidaalka, kuwaas oo intooda badan lala xiriirinayo Sacuudi Carabiya, isla waqtigaasna lagu bartilmaameedsaday laba saldhig oo saliid iyo shidaal ah oo ku yaala meel u dhow Riyaad. Dhanka safarka saliidda Sacuudiga ee loo yaqaano Bariga Galbeed ama Abqaa Qiyaambu waxayna noqotay in weerarka lagu fuliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga soo diray Ciraaq, sida laga soo xigtay ilo Mareykan ah, mana ahan Xuuti. Markab Ingiriis ah oo ay Iiraan gacanta ku dhigtay ayaa la sheegay in uu doonayay in uu ku raro shixnad shidaal oo Sacuudi ah. Dagaalka Yemen mar dambe kuma xirna xasiloonida uu dagaalkan u leeyahay dhaqaalaha boqortooyada, laakiin taa beddelkeeda waxa uu halis gelinayaa karaamada iyo sharafta boqortooyada. Ma jiraan wax caddeyn ah oo ku aadan dagaalka Riyaad uu la galay Iiraan ee xaaladda Yemen. Tani ma ahan markii ugu horeysay oo la bartilmaameedsado dhoofinta shidaalka Sacuudiga. Bishii Abriil 2018, markab saliidda qaada oo Sacuudi ah ayaa waxaa weeraray maleeshiyaadka Xuutiyiinta meel ka baxsan xeebaha Yemen. Markaas Sacuudi Carabiya waxay ku hanjabtay inay joojinayso dhoofinta saliidda iyada oo loo marayo marinka Al-Mandab, iyadoo rajaynaysa in cawaaqibta weeraradan ay la wadaagi doonto bulshada caalamka oo inteeda badan dareen u leh amniga maraakiibta caalamiga ah iyo qadadka sahayda tamarta. Waxa ugu xun ee maanta Riyaad wajahayso waa in ikhtiyaaradeeda marka laga hadlayo hanjabaadaha Iiraan ee lagu xukumayo. Tan ugu muhiimsanna waa dib u noqoshada dallada Mareykanka ee loo adeegsan jiray inay hubiso Hormuuska in uu ammaan u yahay dhoofinta caalamiga ah. Sacuudi Carabiya waxaa soo food saartay la'aanta fursado kale oo suurtagal ah marka loo eego dhoofinta saliidda iyada oo aan loo sii gudbin dariiqa Hormuus, maxaa yeelay qadka safarka shidaalka ee hadda jira kama badnaan doono awoodiisa ah in uu ku rogo 5 milyan oo fuusto ah maalinkiiba xeebaha Badda Cas. Dhoofinta marinka loo yaqaano Baabul Mandab ay ku tiirsan tahay maraakiibta ka dhoofisa dekedda Yaambu. Qatarta weerarada suurtagalka ah ee ay kooxda Xuutiyiinta ku soo qaadaan booyadaha marka ay u sii gudbayaan dhanka Baabul Mandab. Sacuudi Carabiya ayaa wajahaysa qalalaasahan tan iyo markii ay ku wehelisay isbahaysiga dagaalka Yemen. Imaaraadka Carabta kaliya ma aysan soo afjarin iskaashigii dhabta ahaa ee dagaalkan, laakiin waxa ay sidoo kale ku soo duushay Iiraan oo ay u dirtay hogaamiyaasha ammaanka heer sare magaalada Tehraan si ay uga wada hadlaan isu duwidda amniga ee labada dhinac ee xadka Negev u dhexeeya. Ma jiraan wax calaamado ah oo muujinaya in uu kala go'ay xiriirka kacsan ee ka dhexeeya Riyaad iyo Tehraan. Mana jiraan in Riyaad ay u dhaqmi karto sidii lamaanaheeda Imaaraadka iyada oo loo marayo furfurnaanta muujinaysa daciifnimada iyo guuldarrada, taas oo muujin doonta kartidaradeeda ay uga adkaysan lahayd iska hor imaad lala yeesho Iiraan oo leh saameyn muddo dheer iyo mid ay ku yeelan karto dhaqaalaheeda. Isbedelada u dhaxal sugaha boqortooyada Abu Dhabi ka dhaxlay hoggaanka Sacuudiga waxa ay dhalisay in imaatinka Maxamed bin Salmaan jagada loo egmaday iyada oo ajenda uu la soo qaatay ahmiyadda reer galbeedka, una muuqatay inuu aad u jeclaystay in uu jabiyo sharciyada iyo caadooyinka xulafada ah, isagoo aflagaadeeyay Ra's al-Shaaric oo bartilmaameed ka dhiganaya qaybaha siyaasadda labada isbahaysi. Waxay ka walaacsan yihiin haynta doorka ciidamada firfircoon ee xirada sharciyeynta, daciifinta awoodda shaqo joojinta sharci ee lagu matalayo ciidanka qaranka, iyo ku hagidda taageerada qaybaha militariga iyo laamaha amniga ee ka shaqeynaya ajendaha bartilmaameedsiga sharci ahaanshaha. Muuqaalkani waxa uu ku qasbay Riyaad inuu soo afjaro dhaxalka culus ee Imaaraadku kala qayb qaadanayo dagaalka Yemen, ka go'naanta cad ee madax banaanida Yemen iyo deganaanshaha dhuleed iyo awood la'aanta dadka reer Yemen inay dib ugu soo celiyaan dowladnimadoodii federaalnimo, qaab dimuqraadi ah iyo mid jamhuuriyadeed. Saameynta uu ku leeyahay warqadda Yemen ee ku aadan masiirka boqortooyada Sacuudi Carabiya laguma qiyaasi karo marka loo eego caqabadaha jira ee maanta wajahayso. Xaqiiqda ah in Sacuudi Carabiya aysan doonaynin inay qirato ilaa iyo hadda, inkasta oo caqabadahaasi khatarta ah ay ku jiraan deegaanadooda iyo gobolka.
waxaad ka daawanayseen kanaalkeena Miftaax TV. haddii aad ka heshay barnaamijkan subscribe saar kanaalkeena rukumana gambaleelka haddii aad ka heshay muuqaalka si aad u ogaano like saar mahadsanid.